السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردقدقة وهذا صوت دعي عديمنا وطن ما إكران تهليل أيام ميت كيدي لهلا عاوة لفيه هذا الله هلي مال ولبا أنا لقى مليسنين لقى صوصاري كرتون خوف لدح جليي إسلام كان قد لسي جليي لفيه سي أيام لهلي أو قف دمر أو دينا عكرنا أي دينا عيالان مركا لقى صوت إن مرعد لدح جليي مراوين كدمر كأي حرتان أو سوق جرى جلباب يسدو كلا دروع كلا haddaba ma ikraan tahliila saraakiishu waxay sheegeen inay shaki weyn ka qabaan sax ahaanshaha arrintaas oo ay sheegeen inay aaminsan yihiin in qofkan uusan qof kale noqon karin oo ikraan tahliil ay tahay weliba meesha laga helay waa meelihii loo maleysanayay in gabadhaasi nafta lagu dhaafiyey ama loo qaaday duleedka magaalada muqdisho waa meel inta badan tuhun badan uu ka taagnaa in markii gaariga gabadhaasi la saaray in loo dhigay oo nafta lagu dhaafiyey garas baaley meel cidla ciirsiya oo xaafado badan aanay ku oolin guri jiingad ku wareegsan oo laakiin aan la deganayn dhexdiisa rafaadka ka muuqda ayaabaysid kartoonkan qofkan ku dhex jira oo waqti dheer inuu ku jiray ay muujinayso godna la sii geliyay oo guriga meel kamid ah ayaa la soo helay waxaana laamaha amnigu ay noo sheegeen inay baaritaan culus bilaabeen weli baaritaan caafimaad oo xaqiijiyay sida waxa loo yaqaan forensiga baaritaanada faraha ama dhicaanada ama waxyaabahan oo kale ma jiro oo hadda ayaa la ogaaday laakiin annaga xigashada waxaan dul taaganahay laamaha amniga waxa ayna iyagu qiyaastoodii ay soo gaarsiiyeen xog ahaan sidaan ku helnay in haweeneydan ay aaminsan yihiin macne ilaa xad inaanay ahayn qof dhawaantan nafta la dhaafiyey isla markaana ay tahay qof kiiskeeda si aad ah oo xeelad ay ka muuqato loo qariyay oo ikraan tahliilna ay noqon karto marka loo fiiriyo marka kiiskan ayay sheegeen kartoon qofka la dhex geliyay sidoo kale la dhex geliyay marada meedka lagu daboolo ee cad karfanta loo yaqaano isla markaana dharkeedii qofkaasi aanan la sii qaadin meesha uu yaalay waliba jalbaab wax ay ku tilmaameen sawirada aan helnayna ay ka muuqdaan oo blue mari ah ama blue mari xigeen ayaa meeshii laga soo saaray sidee lagu ogaaday waa su'aal kale oo muhiim ah oo dadku ay isweydiinayaan waxa la inoo sheegay in qof meesha uu iskaga leexday qofkaas oo ilaahay hadda waxa uu yahay aan la ogeyn qofkaas oo meeshan gudaha ugu galay inuu ahaa qof dib jir ah oo kaligii socda iyo in dad meesha marayay ay ur iyo wax dareemeen ayaan ilaa hadda kala cadeyn hase yeeshee ur inaysan ahayn waxaa laga tusaale qaadan karaa lafaha la soo saaray waa qof mar hore meesha ku baaba'ay oo wax cusub ayaa uri kara dabcan marka waxaan wax hadda la ogaaday oo macnihii lagu ogaaday dhinaca urta uma qaabicka sida aawadeed waxay la falgaleen ama u eg tahay qof socota ah oo meeshan xiran waa guri waliba xirnaa oo cid aanay joogin ilaa hadda xogta sheegayso galay isla markaana waxaan arkay isaga ha noqdo qof macnihii tuuganimo u socday ha noqdo qof damac u ka galay jiingada ha noqdo qof meesha seexanaya oo ay xaalad ku adag tahay ama adduunka runtii ku wareeray ma la ogay lahayn mana rabno inaan sii galno baaritaana socda laakiin shaki weyn ayaa laga abuuray gabadha ikraan tahliil cirib iyo jaan meel dhigtay waa la waayay laakiin waxaa jiray warar badan oo soo baxayay oo ku saabsanaa gabadha in gaari looga qaaday magaalada dhexdeeda bartamaha waliba meel ammaan ah oo laamaha amnigu ay joogaan kadibna gaarigaasi wixii ka dambeeyay la waayay raad tirashadiisii u dambeysana dhinaca iyo duleedka muqdisho lagu sheegay meesha hadda laga helayna waa duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan waliba meeshii inta ugu badan farta lagu fiiqaayay garas baaley meel waliba markaad fiirisid qof aanay joogin cidla ah guriga dhinaca fog ka dhaca mooye jid cadde dhinacan ka mara iyo jiingad oodan waa sida caadada ahna meelaha noocaas oo kale tuhunku waa ku yaryahay meel la ooday oo jiingad lagu wareejiyey oo dhexdeeda waxa ka socda aan la ogeyn dadku inay gudaha u galaan xog badan ka helaan waa adag tahay dadka inta badan Soomaalida laguma yaqaan waxyaabahaas haddaana meesha la deganayna tuug waa yaryahay inuu damac ka galo meel cidla ah uu galo ilaa ma qof tuugsaqa jaan iska noqon kara mooyee si kasta ha noqotee baaritaanka iyo waxa ka soo kordhay qofkan waxa lagu xaqiijiyo ayaan ogaan doonaa laakiin warka aagaas hadda ka yeeray ee nuxnuxdiis uu aad u badan yahay waa ikraan tahliil waa ogaan doonaa ikraan tahliil kiiskeeda wuxuu noqday mysterious crime dhacay oo halis ah wuxuu noqday mid la isku dhiibo oo laamaha amniga siyaasiyiinta iyo sidoo kale madaxduba ay kambeeno ku kala galaan waxa ogeyn in kiiskan ay isku eedeeyeen taliyayaal isku bedelay xilalka madaxweynayaal siyaasiyiin kale ilaa haddana uu taagan yahay natiijana aan loo helin wixii ka soo kordhay idinka ayaa u horeeya cadeymaha waxaad ka arki kartaan telegramkeena